cabdiraxmaan cabdullaahi ismaaciil oo ah xogayaha guud ee xisbiga UBK ahna la taliyaha dhinaca macdanta dalka Kenya asal ahaanna ah muwaadin ruucadaaya oo ka soo jeeda dalka Somaliland ayaa ka warbixiyay shir 3 maalmood uga socday dalada Jubilee oo ay ku midoobeen ugu yaraan 13 xusbi oo ka tirsan dalkani Kenya oo dhawaan ku soo gabagaboobay magaalada Nairobi. xusbiyadaasi kala duwan oo ay ku jireen dad asal ahaan ka soo jeeda reer Somaliland muddo fara badan ku soo jiray siyaasadda dalka Kenya. geesta kale cabdiraxmaan cabdullaahi ismaaciil ayaa dawladda Somaliland ku hambaliyay nidaamka asxaabta kooban oo iyagu hore u gaareen taasoo uu yiri qaaradda Afrika aad moodo imka siyaasadeedu inay ku soo ururayso nidaamka asxaabta kooban oo laga imanayo buu yiri nidaamkii 13 xusbi ama 15 xusbi ahaa ee ka jiray wadamada qaar kamid ah qaaradda Afrika oo ay hadda qaateen nidaamka asxaabta kooban taasoo ay Somaliland hore u taagneyd nidaamka asxaabta kooban oo iyadoo asxaabtooda ay ahaayeen 3 xusbi oo kaliya. bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan soo TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland SLN TV Cabdullaahi waad mahadsantahay sida wanaagsan ee aad mar walba u cover garaysid dhacdooyinka halkan ka dhaca ee muhiimka ah mandaqadan khusuusan magaalada Nairobi ee dalkan Kenya xafladan ka socotay iyo amurahan ka socday halkan Bomas of Kenya iyo labadii cashe ka Kasarani waxay ahayn arrimo aad u muhiim ah oo dalkan saameyn weyn ku leh waxay ahayd wada tashi fara badan kadib oo soconayay taqriiban 9 bilood imka muddo la soo dhaafay dadka isku aragtida ah xisaabta siyaasadda ah wadankan ka ah isku aragtida ah lana aragtida ah xulafada Jubilee Alliance oo markii hore laba xisbi ah markoodii hore oo ay kala hogaaminayeen madaxweynahan Jamhuuriyadda Kenya mudane Uhuru Muigai Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa oo hogaaminaya isna xisbi kale ku-xigeenkiisa William Ruto marka labadooda markii hore isku biiray ururkan Jubilee intayada kale axsaabta kale waxaanu ahaynun dad ma garanaysa iskaashi leh laakiin kama aanan mid ahayn xisbigaas si rasmi ah coalition allies wax la yiraahdo isbahaysi ayuun baanu la ahayn horta Somaliland waan ugu hambalyeynaya iyadaaba nagaga horeysay dayasho mudan in axsaabta fara badan iyo axsaabtan goboleedka iyo qabaa'ilka fara badan iyo cidba ay maartay axsaaban meel fog aan gaar karin ama hilbilooyinka dadkooda aan si fiican uga turjumi karin inay fara bataan dareenka imka jira waxa weey in la soo koobo waxan dhinac walbana la isku raacsan yahay dadweynaha Somaliland ama khusuusan qurba joogta Somaliland adduunka daafiisa jooga waxaan kula talinayaa in aysan gacmaha ka laaban ka hawl galaan ka qayb qaataan siyaabo badan kala duwan uga qayb qaataan qaar ka mid ah ay isu taagaan jagooyinka kala duwan ma garanaysaa jagooyinka siyaasadda xukuumadda ku biiraan ay muujiyaan inay xitaa dadka aan ma garanaysaa siyaasadda aan geli karin ama kuraasta aan raadsan karin ama aan danaynin ay noqdaan dad ismuujiya xagga ma garanaysaa codbixiyayaasha. Cabdullaahi Cabdi Cali TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland magaalada Nairobi.